بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta asxaabta aad joogtaan aniga iyo maanta waxa waaye gabadha habarta waahay Amira say salaam calaykum. Salaam calaykum. asxaabta meel kasta aad joogtiin waxaan idin ka codsanaynaa channelka hadda ku cusub tahay inaad subscribe noo saartid, like dhahdid, comment dhaarayga soo dhiibatid. Amira adna maxaad dhahaysaa? subscribe, like, comment and share. Ha maanta waxa ka hadlaynaa aniga Amiro what's the difference the people grow up in this country and the people grow up in back home in Somalia. What's the difference? They go back home. If you go back home. They go back in Somalia. Yes, and what's then the when they difference? when they go to Somalia, they small. And then when they come back at their home. Somalia, you cannot find it. Everything you find it here. You cannot play the computers. You cannot find it because there's no electric. There is electric, but people cannot afford. There's a lot of people that even can't afford food. So mahadaysa. I don't know. You have to grateful. You have to grateful. You have to Whatever be you- grateful Whatever you have, and you don't waste your food because some people don't have food to eat. And I think now, what do you do? Huh? What do? You go to school? Do you go madrasa? Yes. Quranka, where do you go? Huh? Quran. When you learn? What are you learning now? Which surah? إذا زلزلت. Still you as in just Amma. Yes. Okay. He gave everybody the soup. Okay. أصحابته maanta annaka nooma habeen bay noo tahay caaway waxaan rabnaa inaanu ka hadalno dhibaatooyinka ilmaha qurbaha ku koray iyo ilmaha wadanka ku koray waxay ku kala duwan yihiin. qof walba waxaan rabnaa ra'yigiisa inuu gudaha kasoo dhigto oo comment kusoo qoro. hadal badan ma rabno inaan sii dhahno. xaafadda waa la soo jeedaa, ciyaalkii oo dhan baa soo jeeda, ciyaalka habarta waa xaafadooda joogaa. Don't touch it. Stay with me. Okay. Okay, Mira? Yes. Are you playing? Yeah, I'm playing. But you say you want to have fun with me. Bye-bye. Okay. Amira waa iga tagtay. And hi, this is Abdul Fattah and Kafi here today. He's our guest, my nephew. Abdul Fattah, welcome to the channel. What you say to my friends and my fan? Please subscribe, like, and share. Hadda nagu cusub tahay, welcome to our channel. If you're new here, welcome to our channel. And Abdul Fattah, do you know what's the difference to be kids are born in New Zealand or Australia or America and the kids born in Somalia? No. There's a lot of difference. Do you know why? Why? The kids here, they have a lot of opportunity, but the kids who grow up in back home, some kids, they don't even have something to eat. They don't have a birthday cakes. They cannot, their mother or their father, they can't afford. Some might have, some might don't. So are you grateful what you have here? And what would you like to say that the kids who live in Western countries means, and the kids living overseas like Australia, America, Canada, and all that, they have to be grateful. Don't waste the food. Be grateful what they get. Yeah, and Allah might give them more. The kids who doesn't have what you have. So they don't die. Right? Yeah. Yeah. Yep. Are you happy? You born here? Are you Somali? Yes. Are you proud to be a Somali boy? Yes. I'm proud to be a Somali woman as well. But the thing is, Abdul Fattah, do you go to school? Yes. Do you go to madrasa? Yes. What do you learn now? What surah? Which surah are you at? Iqra. Can you read it for me some? No. No. Can you try? Just try. Oh, it's hard. It's not hard. Yes, because I started the surah. Okay, look at me, Abrir. Okay, don't be shy. I'm here with you. I know. I know. Do you know I love you? Okay. So let's read it. Bismillahir Rahmanir Rahim.
الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك. بسم ربك. هاي كتر. اقرأ باسم ربك الذي خلق مهم. خلق الإنسان من علق. مهم. اقرأ وربك أكرم. مهم. Okay, Abdi, thank you for coming. Thank you for staying with me for this long. And this is Amira. And thank you guys for having me here. I love you. أصحابتا meel kasta aad joogtiin waad salaaminaa anagoo isku duuban Amiira iyo Cabdi Fataax school holiday ku jiraan hadda late bay noo tahay soo mar kale ayaan rabaa inaan insha Allah biidmillah soo fariisiyo Cabdi iyo Amiira oo aanu waraysi kale aan isla sii yeelano inta aan Soomaaliga fahmaynin Ingiriiska fahmaynin waxaanu ka hadalnay ciyaalka wadankii ku dhashay iyo ciyaalka maanta qurbaha ku dhashay maxay kala duwan ciyaal badan ayaa wadamada ku dhashay oo granted u qaatay granted marka ay leeyahay waxa waaye waxay haystaan aanu haysan inay waxaysan u haysta ilmaha wadanka ku dhashanay qaar badan oo waxa jirto oo nolol haysan ilaahay waxaan ku baryaynaa iyankana inuu ilaahay waxa ku farxaan ama isaaqad waasaca uu siiyo marka ciyaalkii anigu intaasaan isweydiinay oo iska wareysanay intaa wixii kasii dheer aan isweydiinay waxay ahayd yani maxaa baratiin xageed aadiin iskuulada aadiin maxay yihiin quraanka suuradee ka maraysiin Cabdi wuxuu noo sheegay inuu suurad iqra marayo Amiirina hore watay noo sheegtay aad iyo aad ba u mahadsantihiin hadda channel ku cusubtiin subscribe dhaha like share comment rayga ugu soo dhiibo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu